بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا أرضي الشرفت بضن حفاظة أوفر كتابك إلهي سبحانه وتعالى السقوط مي كولا لوزي إلهي درتي جل جلاله. markaynu ilaahay u mahadnaqno kadib waxaynu u mahadnaqaynaa cid kasta oo sabab u ahayd ardayda inay halkan isugu timaado, ciddii maal gelisay, ciddii isku dubariday, ciddii wacyi gelinaysa iyo ciddii soo booqata ee u timaada intaba. waxaynu leenahay camal la isugu yimaado camalkii ugu wanaagsanaa ilaahay quraankiisa inoogu sheegay watacaawanu cala albirri wattaqwa. wixii wanaagsan ilaahay cabsidiisa iyo ihsaan iyo khayr ah isu kaashada bay ilaahay subhanahu wa ta'ala. ardaydu run ahaantii waa da'yar, wax badan baa dhaafaya oo nafiyo shaydaan dhaafinaya. jaaniska ah inaad waqti kale meel kale qaban oo 24 saacba aad meel u fadhiisato cilmigaagii waa jaanis aanay haysanin dad fara badan. waan ogahay naftu waxay yara dareemaysaa waxooga cidhiidhiya xorriyadii iyo meel marmarkii iyo moobil walwalaaqii iyo farsamooyinkii bay doonaysaa, laakiin danteedu waxay ku jirtaa ilaahu 10 cishana ha ahaatee inuu qofku helo jaanis tafarruq baa la yidhaahdaa, inuu firaaqo u helo cilmigii iyo cibaadadii labadaba. idinka iyo macallimiinta idinla howlgelaysaba waxaan rajeynayaa inaad khayr fara badan shaqaysan doontaan. sidii macallin Jimcaali noo sheegayna waqtiga waa iska ordayba waad arkaysaa imika kala badhoobad inta dhana waa bidqsidaas bay ku dhamaanaysaa. inta haddaan ka gudbo kelmadda la yidhiibay waxa weeye sifaadka iyo akhlaaqda qofka muslimka ah. qofka muslimka shakhsiyadiisu way ka gedisan tahay ashkhaasta kale sida gaalada, munaafiqiinta, dadka fusaaqda ah ee cisyaanka way ka gedisan yihiin. sababta taa keentana waxa weeye waa rumaysnaantu ilaahay rumaysan yahay iyo waxa qalbiga ugu jira iyo tayada la qofku tayu leeyahay. qofnimo waa qof gob ah hadduu qofku ilaahay rumaysan yahay, arkaanul iimaan iyo arkaanul islaam uu qaatay. diimaha samada ka soo degay oo dhan al-adyaan as-samaawiya dhammaantood waxay dhisayeen akhlaaqda iyo ummadda. inuu qofku qof noqdo iyo inuu qof la mood noqdo laba arrimood oo kala duwan. qof baa jira laakiin aan qof ahayn. qofka diinta ilaahay qaataa waa qof, qofka diinta ka tagana waxa la yiraahdaa qof la mood baa la yiraahdaa, qof laakiin qof damaaha. sida awgeed nabigeena calayhi salaatu wassalaam iyo diinteenu gaar ahaan aad waxay awoodda u saartay intaanay wax kala qabanin akhlaaqda, caqiidada laga dhiso dadka. nabigu sallallahu alayhi wasallam Makka iyo Madiina ayuu kala joogay. waqtigiisii u badnaa waxa uu joogay Makka ee uu dacwada faafinayay. waxaanu u joogay binaa shakhsiya insaaniya mutamayiza, inuu dhiso qof bini aadama oo mu'mina oo akhlaaq leh oo dadka dacwada gaarsiiyay isaguna ku dhaqma. 10 sano ee dambe uu Madiina joogana waxa soo degayay ahkaamtii iyo mucaamalaadkii iyo jihaadkii iyo dadku wixii ku wada dhaqmayeen. taas waxay cadeynaysaa in tusinaysaa dhisida qofku inay ka muhiimsan tahay dhisida guryaha iyo laameeyada iyo wadooyinka. wax loo dhisay guryaha loo dhisay waa dadku haday dad noqon waayaan akhlaaq leh de wax dhismaha wax loo dhisay waxba tari maayo. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa hogaamiye akhlaaqeed buu ahaa. isagoo nabi ba ahayn ay ka heleen dhaqamadiis maxamed amiin, maxamed saadiq, maxamed al-adil, magacyo wanaagsan bay ugu yeeri jireen. hadday isqabsadaan isaga oran jireen noo garnaq. haddii ay u baahdaan cid runta u kala sheegto isaga u kala sheegi jiray. wuxuu ku helay ku kasbaday akhlaaqda wanaagsan. markii uu diinta u sheegayna rag badan ma beenba umay qaadan waxay awalba beenno mu sheegi jireenoo ninkan warkiisu waa sax bay markuu yidhi ilaahay baa ila soo hadlay waxaan u rumaysan weyn waa ninkii akhlaaqda badnaa, waa ninkii runta badnaa, waa ninkii dhaqanka wanaagsanaa. waayo waxa aad sheegaysay akhlaaqdaadu inay iswaafaqsanaadaan ayaa muhiim ah. nabigu sallallahu alayhi wasallam
إلهي بوحو كو أماني أخلاق ذا وناس سقى إنه معلنا إنه قدوة خضينا وإنك لعلى خلق عظيم بإلهي أدوك نبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد كسو أنت أخلاق وين هي تكسو أنت لما ورنا أخلاق وناكسنتين أخلاق ذا مد وين بلين أو وناكسن أو قروح بدن أو طيلة أو احترلة أو وحصار له وأرنتها عن شاقني إن قال يا إسلامي عدوية نعب صاحباء وقران إنه أخلاق وناكسن النبي صلى الله عليه وسلم وحنبيقوا أها صلوات ربي وسلامه عليه marka laga yimaado isaga dhaqamadiisa dadka kalena wuxuu ku dhiirigelin jiray oo ku tarbiyeyn jiray oo bari jiray akhlaaqda wanaagsan qofka akhlaaqdiisu fiicnaato waa abaal marin jiray waa u duceyn jiray qofka akhlaaqdiisa wax ka qaldan yihiin nabigu waa taadiibin jiray ama waa edbin jiray ama waa toosin jiray sallallahu alayhi wasallam ahadiith fara badan ayaa nabigu ku tilmaamay akhlaaqda wanaagsan iyo sida u fiican tahay horta wuxuu inoo sheegay rasuulku in isaga loo soo diray uu akhlaaqda inuu dhameystiro inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq ilaahay wuxuu soo saaro nabi iga dhigay inaan akhlaaqdii wanaagsaneed dhameystiro nabiyada hore akhlaaqdii ay sheegeen inta ka dhiman inaan kaamil ka dhigo ayaa la soo saaro nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa loo soo diray nabiga akhlaaqda wanaagsan aan weynaynteeda iyo ballaarinteeda iyo waxtarkeeda نبأ يمين النبي صلى الله عليه وسلم وحكى ضلبضي دردارا صحابة دد وناسن بها إنه علمك ضلبه إلى الطلي هذا مرك الله الطلينا كل رقم معلك هذا أنت وتكتوح على جاي بيناد أورد معلم حد يقول الطلين له القرآن كان دوني أنا السائر هذا حد يقول نستحين له إناد أورد بلا جاي وحلا جاي بيناد علمك اللي أنت وتكتوح أورد علمه ولين نستحي أرمها نوعين نوع سمحان صحابة اللي كانوا حيين نقار دردارا كي الطلبة طونته dabeetana weydiiya nabigana markuu uga jawaabay dhaqan gali عليه الصلاه والسلام wuxuu yiri rasuulka ilaahay oo dardaara wuxuu nabigu ku sallallahu alayhi wasallam ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'a alhasana tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan ugu horreyn horta ilaahay akhlaaq wanaagsan kula dhaqan ittaqillaha ilaahay ka cabso macnaheedu waa maxay ilaahay akhlaaq wanaagsan kula dhaqan wa cabsidu wa qalbiga واتكينيسا إن هذا عيدك أركيسا هذا عيدك أركينيو هذا لو مغلى هذا لو مغلى بين العبادة ستدي هذا مركل لو أركي تكتو صلاة قشون مركل لقاسي تشستناس كجب حلبة صلاة أخلاق دل الربيمة إلهي تقول رقم سوا خلق كذا عبادة سا أتكعب سنة سوا الله سبحانه وتعالى حمان هذا كارد عدينا ونا كده بيجي وما صح يسبنه هذا نوح السيب بريا إنه ضد كان أخلاقه عن كل النظر وخالق الناس بخلق حسن ومضى كلا كل النظر أخلاق وناكسن يو وحو وناكسن كل النظر وحو هؤلاء إيمانهم وحكى الرسول عليه الصلاة والسلام قفك أخلاق ذا وناكسن إن المؤمن ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه حديث كسنته كسوية حديث سماوي qofka muuminka ah wuxuu gaarayaa qof waligiiba salaatuleil u taagnaa ama intii uu noola badankeedii soomanaa ayuu xagga darajada ku gaaraya muxuu sabab tahay bi husn khuluqihi akhlaaqdiisa wanaagsan muxuu ku gaarayaa qofkii iska soomanaa rabadaan laan iska soomi jir qofkii iska tukanaya habeen oo dhan ilaahay dartii ayuu wuxuu darajo ahaan ku gaarayaa inuu akhlaaq wanaagsanaa nabiga sallallahu alayhi wasallam aniga qiyaama waxa iigu soo dhow xagga darajada iyo majliska ahasinukum akhlaqa kunaydu ku akhlaaq wanaagsan ayaa booska nabigu fadhiisanayo ugu soo dhow haday akhlaaqada wax ka qaldan yihiin nabiga agtiisa tagi maysid maalinta qiyaama hadaan meel kale oo ilaahay naga shartire lagu bakaxaynimo waxa kamira xadiiska nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam shayga ugu miisaanka culus miisaanka xasanaadka marka la saaro ka ugu culusi waa akhlaaqda wanaagsan kafaday miisaanka wax lagu xisaabinaya waxa ugu miisaan weyn an husnul khuluq iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam arrimaha bulshada nolosha caadiga nabiga akhlaaq buu ku qiimeyn jiray guur haday tahay bayc iyo wax la kala iibsanaya haday tahay muamalaadka dadka la muamaloonaysa
hadduu nin reer gabadh ka soo doono guurdoon yahay nebigu ma odhan lacag ka eega ama qolo ka eega wuxuu yidhi akhlaaqda ka eega idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh hadduu idin yimaado nin aad raalli ku noqotaan diintiisa siduu ugu dhaqmaayo diintii marka maxaa la raaciyay akhlaaqdii iyo akhlaaqdiisa haddaad aragtaan oo reer usoo geed fadhiisto inan ka soo doona siiya buu nebigu sal alla alay slam haddaa u diidaan waxaa idinku dhici doona dhibaato weyn soomaaliduna maxay wax ku eegtaa markuu idin yimaado mid jawaan weynoo lacaga sitaa un dee soo maa ama reer hebelkii aad garanayseen ah bes wax kale kuma qiime ama meelaha dabadaa ka yimi hadduu doono mid irbad lagu midaba ha ahaadeen mid uun wax adduun uun magaranaysa nebiguna muxuu leeyahy sal alla alay wasalam haddaad reer dhisaysaan akhlaaqda ku eega gabadhana muxuu yihi fadfar bidaati diini taribat yadaak adigu haddaad guurdoonto nin aad imika reer samaynaya aad tahay gabadh diin la doono buu nebigu sal alla alay slam dumarka waxaa lagu guursadaa qurux maal qolo diin ta diinta le ku fara adayg ayuu rasuulku leeyahy sal alla alay slam way fara badan yihiin akhlaaqiyaadka nebigu inoo sheegay sal alla alay wasalam waxaa jira nebigu u necbaa akhlaaqda xun aad buu u necbaa waxyaabaha cunsuriyadda beenta khiyaamada waxyaabaha aad buu u necbaa waxay ka dhigan tahay la dagaalanka akhlaaqda aan wanaagsanayn iyo hirgelinta akhlaaqda wanaagsan labada mawduucun bay ahayd wuxuu arkay nin saxaabi ah oo carab ah ayaa wuxuu ku yidhi nin madow ah oo afrikaano saxaabi ah yabnata sawda ayuu ku yidhi ina hooye madow macnaa waad madowda buu leeyahy afrikaan baa to nin carab baan adna waxaa gan madow ayuu ku yidhi nebigu arrinta aad buu uga xanaaqay sal alla alay slam abudardaa saxaabigii la odhan jiray buu ahaa acyartahu biummihi ma waxaad ku ceebaynaysaa midabkiisa ay hooyadii ku dhashay innaka mru'un fiika jaahiliya ayuu nebigu adigu khaslad ka mida khasladii jaahiligaa kugu jiraba gebigaaga hadda ninka lala hadlayo oo saxaabi muu odhan nebigu de saxaabi weeyaane bal yaan lala hadline u khaldamay u halmaame xaqa nebigu waa caddayn jiray calayhi salatu wasalam wuu ku canaantay si adag weliba saxaabigaasi waxa la intii maalintaa hadalkaa lagu yidhi kadib aad buu isaga ilaalin jiray arrimaha noocaasa inuu ku kaco cunsuriyadda iyo wixii la halmaamo way badan yihiin inta nebigu uu qabsaday uu yidhi arrinka noocaasa uu ka xanaaqay ee akhlaaqiyaadka aan wanaagsanayn uu nebigu la dagaalamay calayhi salaatu wassalaam sida beenta khiyaamada iyo wixii la halmaalaba wuxuu arkay saxaabo ansaar ahayd oo isku yar hanjabaya laba qabiil baa isku yar dhacay nebigu waa ku xanaaqay sal lla slam abi dacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum nebigu ma jaahiliyaddiiba dib ugu noqoteen oo waxaydiiba isugu yeedheedhanaysaan anigoo idin dhex taaganba ayuu nebigu ku odhanayay taas maxayna tusinaysaa la dagaalanka akhlaaqaha aan wanaagsanayn beenta tuugada khiyaamada qabyaaladda cunsuriyadda ammaana darrada ilaa aakhirihi nebigu wuu necbaa waana diidi jiray waana la dagaalamay waanuu ka bedelay dabcan ummaddii uu la noolaa dhaqankii ay lahaayeen oo dhan boqolkiiba boqol nebigu waa hirgeliyey calayhi isalaatu wassalaam dadkii wanaagsanaa saxaabadii nebiga sal alla alay wasalam iyo dadkii la odhan jiray taabiciintii iyo kuwii ka dambeeyeyba odhaahyo wanaagsan bay ka yidhahdeen akhlaaqda wanaagsan nin shaaciro muslina baa wuxuu yidhi inama alumamu bilakhlaaqi maa baqiyat fain dahabat akhlaaquhumu dahabuu ummad jiritaankeed waa akhlaaq qiyamkeeda iyo dhaqankeeda iyo diinteeda ummaddu hadday ilaashato waa ummad jirta haddii laakiin akhlaaqdu ka tagto buu nebigu oo bilaa akhlaaq noqoto ummaddaas inhiyaar khuluqi hadduu ku dhaco waa ummad dhimatay oo meesha ka baxday wey bulshada muslimkaa maanta caalamiyan wa maxalliyan waxaad moodaa akhlaaqiyaadkoodu in hoos u dhaceen oo gaaladiiba ay la yaaban tahay oo hadday ballan iyo run noqoto hadday daacad noqoto hadday ammaano noqoto iyo wixii kaleba inay ummadihii kale aan hagaagsanayna gaaladaha ay kaga fiican yihiin baad moodaa dee innaguna haddaynu soomaalinahay waaba is ognahayoo dhaqankeena waynu garanayna adigu ka muslin ahaan daaci baa tahay dadka waxaad ugu yeedhaysaa diintaada iyo dhaqanka aada haysato waxaanay kaa soo raacayaan kolba saad ugu dhaqanto akhlaaqdaada haddaad wanaagsantaho ahludiin tahay dad baad usoo jiidaysaa diinta odhanaysa wallahi nin kaa yar inaan kaa yar sidiisoo kale inaan noqdo ayaan doonaya buu odhanaya ina yaroo kale xaafid buu sidaada ku noqonaya
nin multazima masaajidka baan ka kicin buu ku noqonaya iimaan buu ku noqonaya adiga sababaha akhlaaqda hadad la ballantay oo been u sheegtay ama isagoo sii jeestay alaab yar uu leeyahay hoosta gashatay oo xaday ama aad isagoo meel iska maray cayday waxaad fogeysay intaasoo kiiloomitir baad akhlaaqdii iyo diintii wad sii deedaysay qofka makana diin shughul kula boodhanay inuu kula fadhiistay inuu kula sheekaystay inuu ku maaragtay taageero intuba midna suurto gelimayso imaam shaafici rahimahullah ayaa wuxuu dadka dacwadda iyo khayrka ugu yeedha idanka iska aamusan oo juuqba waran khayrka ugu yeedha dadka oo sidee bay yiraahdeen buu noqonayaa isaga dib loo weydiiyay bi akhlaaqikum ayu akhlaaqdiina way marka akhlaaq wanaagsan tahay socodkaaga hadalkaaga waxa ugu dhima qiimo ku fadhiyaan laakiin waxa haday yihiin dibteeda leedahay sida awgeed qofka akhlaaqda waana dadka waa soo jiita ka akhlaaqda xumina dadka waa durkiya ilaahay kitaabkiisa quraanka nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayuu wuxuu faray inuu la fadhiisto oo uu la mujaalasoodo oo uu la muaamaloodo dadka wanaagsan nabiguna inagu ina sii faray inaan saaxiib wanaagsan la fadhiisano ilaa wixii akhlaaqdu meesha laga soo qaataa waa mujaalasada weyn cida wada sheekaysataan cida wada fadhiisataan hadallada tirtiraahdo adoo iska lehlo madarkaysa waxbay caydaado maalinta dambe wax caayin badarkaysa wax wanaagsan buu ku hadlaado wax wanaagsan ku hadlay badarkaysa قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا حكى سيدنا بيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والنبي محمد قال الله عليه الصلاة والسلام نبي محمد ونفط هذا واحد كصبر سيسا إن الله فريسة لا صاحبته هو الرب يقول بريايا كلن هري قال الدنباب مساكين تا هدن يرتا قال هذا كنت ربري كل ما فريسة كرنا نقول من مدحنا فقراء إيه دن يرتني وحنا سك كعبير مركز إلهي آدم سوديش مثلا يردك وناكسن إلهي بريا إلهي عابدة إلهي كحرن قال هري قال الدنباب هو الله فريس ولا تعد عيناك عنهم من دهها كلا لين مالك له يجي تريد زينة الحياة الدنيا هذا الدنيا الدنيا هذا النبي محمد عد الله عليه الصلاة والسلام الدنيا ما الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لكن وحين ربريا درس آدم بالله ما كتير مرة حق الدم وح لقيس الرعي كوه هو ذا الرعي قال هذا يوحنا هدقيسن وهلا صاحب وهلا فريسن آياتنا وحين توصل إنسان نفتو إن عيد وناكسن لا فريستين الصبر وبانت هو اللي كان كتيرتان ماشان الساحتان هل كان وحكو أخرستان صبر بده وبان وماذا سوت مباتين قفل بقى أخلاق سوتها كدت كوجونا سنة الله فريستها صبر بده وبان نفط هذا صبر بك وبان نفط واحد سكتش عشري بالدم ببضانه هذا البضانه هذا يقلقال يعني إن أسكر عادي سكدونيس لكن ما الصحبة قلب واحد صحة قف كاسلا ده الله إنك أنا بيتري يكون شاطر قرين كراي وإيمانك أجيو أخلاق هذا وحطر كراي الله فريس رسولنا عليه الصلاة والسلام وحاول مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك هذا دوفرس هذا الكسوع عنده دقيس هذا اللي النبي وحسهلا معه الله فريستك يلا صاحبك يلا شاكيسك يلا راعتانك قفك وناكسن صالح بالي صفة صبت غاضنا يسمى كدير الرع لما ورنك قابن رع لما ورنك كير كوين كقولاد الريه بيل كالعقتها هيست كشار كتين كاستقانا ككبد وحصلنا كان أسكر دقيس علامة أحمد علامة سنة علامة النبي وكوش صلى الله عليه وسلم يعني جليس وقفك الله فريسته لكن نوعه الصالح قفك سنو قف وناسيد قف ربو قرنه سما قفك حنا وطانا قفك وناسنا وطانا كاسي وحو كدغيه ابن ابو كحامل المسك نين سدا عذرك كugu udgoon nin cadar la in Allah fadhiisatay ka dhiganta ninka cadarka haya wuxuu nabigu yiri ama cadar buu ku siin ama wad ka iibsan ama ugu yaran ur wax udgoon adigo jidhkaaga maradaadi ka urayaan ayaad baxaysa faa'iidooyinka sunba laga helaa cadarka inuu xabad yar ku siiyay xabada iska sii marmarso waxa laga inaad kaba iibsato wax yar oo lacag waxa laga inuu kugu buufiyaa taraba yar tijaabi ninka cadarka cadar la u taga
وكوي ربو في أنت صايلا أنت تقول يني جالس إلا عاو كاسة ورث قفك الصاحب كونك سنين وساسك حكمة بتكفايد سا مركز دبابة سوق كوريا وريلا كعبس وحباط حمانة واركدا بكون وحنا سبق وقارك وكقول رجلنا وحد تقولنا وروح لبضم وحاول دجن عملك وناس سنة طيب هالنقض هذا لما فعل وحد وأنا بهنو صاحبك حنا وكاله واحد صاحبك حن وكاله السجن النبي يقول هو كناف خكير سيدا كون محبوفية كبها إيو برها إيو وحا تمالين تا دبك الشداء لحوشة كو قراء قانسير كو قراء حشي وحا كورده كاسو كرويم إنه مرضى كاقوب ومرضى دبدا مال دنبيل بايلا كودا عيسى مال دنبيلا كدولا ينباتي مسوما نكنا الله فريس دنبيلا كدولا يجبيس أما مرضى كادلوني أما تشيركو كاردا وعي أما وحنا بيقول وح قرمون أديكو تشيركاجي وحاجة دريمي عن في عنب ماشي كتجس ويا وح قرمون بالقرى يا ماشي سما بالله ما كل أري الله وضع نين وحلا يسوى قرمون تبي كتجس ماشي أما الطبيعي اللي بيلك هالراعي نين وحلا ذو تقول وعذر استتبت كتجس وكي حكمة صاحب كاي الدين كها يكي أنا خلاق ذو هناك سنين لا فريسة كذب الصدق كديجن أي كديجنت وحي لحظة dadka akhlaaqda xun leh marka ay koox noqdaan ama meel fadhiistaan halka dadka wanaagsan ka tasbiixsadaan kelmadda wanaagsan ka yiraahdaan iyagu hooyo la caayo aba la caayo wax la nacdalo hadii la doono diinta iyo ilaahay la gaaro candhuuf la isku tufo waxaan da fiicneen nin mid aragtay soo fadhiyo halkan soo taagan oo lagu leeyahay hooyada waxa ku sameeyo hadana soo qosleey mad aragtay nacasnimo ka weyn mad aragtay saaxiibka xun dhibtiisa weeyay inaad iska soo qosradaan hooyada caayna iska soo tidhaahdaan labadii nabeena laba qof liitatiin bay ku tusanaysaa hooyada imaka meesha ma joogto markuu ninkan caayay Soomaa aabahana ma joogto doon u dhintay ama u dhimatayba hooyada iskaga tasbiixsanaysa qolkeeda iska hurdaba ayuu caayay saaxiibna wad ka dhigatay intaas uu basiit intaas uu ka soo qaado ninka ku quuray inuu waalidka caaya ma wax la raacaaba adiga hooyada mid caay kartay aabaha mid caay kartay waa ma Soomaa sidaasoo kale kacaaya ee kugu hor caaya waalidka wuxuu ku sheegay inaad qof liita tahay hooyada la iska caayo iska soo qoslo dabato ana ma anu caayay imaka ana caayay ana caayna iska ordanis ama iska qoslaysa wadadad wadamir xumo saaxiibka xum weeye sababtu waxa keentay haday meel majlis fadhiistaan qiiq iyo sigaar iyo buur iyo balaayisaas uga fuufaya meesha qarmuunkeeda wadayaabas hadii ay meel kale isugu yimaadaan khayr kama soo jeedo هلا فريستان gurigiina markaad ka soo baxdo kuwa kaabada fadhiista ama gidaarada fadhiista ama guriga inta ka baxaan meelaha inta la soo dhargiyo oo ay soo dibiraan umada dhibta la doonto halla fadhiisan waxa la fadhiisata gurigiina goobtaada waxbarashada masaajidka tan hadii lagu daray reerkiina ku dirsadeen bes waaba intaaba hadaba arday baa tihiin تسوى أخلاق الجود ضد المسلمين تا طالب العلم أرضي أخلاق اللي قدونه وحير استلتاجين أخلاق ذوي وناكسنت عيد والبوي وناكسنت ومضى كم ذا لكن تضي كسو قروح بدن تبى تشردي تذكر هذي اللي جوا أركا أخلاق حمل الله يابي ماي لكنك واحد دجنا يهدي أخلاق حمل الله أركا الله يابي ورت ما يسوي دي سبحان الله حد دجاتا سيد هذا قف مركو وحبرنا يوم نحن حبرنا يوم wuxuu xubaranaya inuu qof akhlaaq leh oo edeb leh oo cibaado leh oo ilaahay garanaya oo umadu ka badbaado noqdade saas loo bartaa maxay u jireen dadkii wacna ilmun bila adab ka shajarin bila thamar wa ka ta'am bila milh ilmi bad baratay laakiin edeb mali akhlaaq mali waxay ka dhigantay geed bila midha oo har lahayn oo qodax iyo bacadun ah wala jaraya geedka waxa lagu falimaa أما هو كده راشد بلا ملح راشد بلا ملح هذا نقدر ضرنا ما له هذا سما قف كاسنة وقف بلا ملح حوي قف كعلمي برتي أرضيها أما معلنها أما ضعيد علم يمكن أوجا لكن أخلاق دي سود السنين قف نوع عصاي علماء الإسلام كل شيء هذا بقى كتبت هذا أخرجه أنت بدن أخلاقيات كهذا نوع علم مكسابسين آداب طالب العلم آداب حملة القرآن أخلاق حملة القرآن كتب ساسا القرآن بأدركز
xiriirka ka dhaxeeya waa maxay qofkan wax baranaya aadaabta ama qofkan quraanka xambaarsan iyo akhlaaqda xiriirka ka dhaxeeya waa maxay akhlaaqda nabiga lagu sheegay quraanka ilaahay ku yiri waynaka la ala khuluqin aziim ayad gabigeediba siday u dhameed sidee baanad marka akhlaaqda xiriir u lahayn inta badan arkimaysid kutub laga qoray akhlaaqda darawaliinta akhlaaqda askarta waxa ma arkaysid marka nin suuqa taagano haduu wax caayla yaabimis laakiin in buugaag sita ama kutub sita haduu wax caayaha la yaabas leeyana maxay yeelay dadku waxay ku oranayaan waxan yaa wax baray ma kana wax dhiganaya lagu oran wariyo wax ku soo baray baa lagu oranayay sama hatta waxaad wax gaarsiinaysa cidii wax ku bartay ilaa cidii wax ku bartay akhlaaq waxan bay ku bartay adigii baa damage iyo dhaawac gaarsiinaya ama waalidka yaa dhalay baa la oranaya qofkan Soma tawaalidka aflagaad u geysatay waxa ku dhalay nin wanaagsan iyo hooyo wanaagsan aabbo wanaagsan iyo hooyo wanaagsan laakiin qofkii markuu qalloocdo ceeb uu soo jiiday cid xiriir la lahayd oo dhan marka akhlaaqda hoos ay uga dhacdo inaad fahanto horta meeshan waxaad u timi inay tahay dhisida naftaada oo akhlaaqdu ugu horeyso ayaa muhiim ah waliba marka ummad meel isugu timaado akhlaaqdeedu bay sula timiyeen dhaqamadeedu waliba gurigoodii wixii uu kala yimid baalkan la imanay dadka ilaahay ma simin qofba in buu ka haystaa dhaqanka wanaagsan mid yar baa loo dhiibay akhlaaqdu waxa sida arsaaqada kala loo qaybay qofna waa taajir qof waa faqiir qof waa dhexdhexaad akhlaaqduna waa saas oo kale dadka qaar ilaahay wuxuu si akhlaaq mawhuuba ah oo ilaahay u hibeeyay iska leeyihiin way ku dhasheenba iyo mid ay kasbadeen oo iyagu shaqaysteen dadka qaarna waxa laga yaabaa akhlaaqiyadka qaarkood inaan ku fiicnayn oo aanu ilaahayba ugu deeqin badankooda ayaa laga yaabaa haddaba aadaabta laga rabo ardayga waa maxay aadaabta horta laga rabo ugu horreyn waa in qof akhlaaq la tahay oo bulshada wax ku soo kordhin kara oo qof wanaagsan iyo qof xumida isku mid ma quraanka wadiga arka ma sinna soo ma qof wax garanay qof aan wax garanay mid dhala mid qaba mid madow meel iftiina wama yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumat wala nur wala dhill wala al-harur wama yastawi hada asr waxay tilmaamayaan waxa liitay iyo wax toos inaanay wax wanaagsan inaanay sinnayn hadaba akhlaaqiyadka laga rabo ardayo kuwa guudenu sheegnay islaamka oo dhan laga rabo dadkood la wadaagtay oo la leedahay kuwa gaarka waxa kamid ah kuwan soo socda hadda ardaytay arrimahan ku dadaal koow as-sidq inaad qof runlow ah runtu waa cajiib weey waxa runtu markii la qiimeeyay waa geesinimo wax kala ma daarto qof been sheegay waa fulay caadi waa daarto qof been sheegay arintaas aanu xaqiiqada ka sheegi karay laakiin runtu waa maxay waa shajaaca geesinimo weey waa quwa shakhsiya qofkani inay naftiisu awood badan tahay isku kalsoon yahay cidna aanu ka baqanayn ayuu ku tusinaya sida awgeed ilaahay kitaabkiisa uu ku amaanay runta nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu dhiiri galiyay nabiga runta badnaa buu ahaa ilaahay darajooyinka dadka sare la geeyo ayuu dadka runta sheeg ku daray alaykum bis-sidqi nabi sallallahu alaykum guudkiina ha ahaato bis-sidqi nabi maxamed baa ku yiri alayhi wasallam way runtu waxay kugu hanuunaysaa wanaag oo dhan jannadaanay ku geynaysaa beentana waan idin ka digayaa buu iyaduna waxay idinku hanuunaysaa xumaanta naartana way ku geynaysaa وحديثك waxa ku jira wa inna ar-rajula la yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa qofku runtu ku dadaala dadaal bay u baahan tahay baashu iskama imanaysan illa ilaahi agtiisa loo qoro kii runta badna bal ka war hadaad ilaahi agtiisa ka qoranta ninkii runta badna xadiidka qaybtiisa dambana hadduu beenta ku dadaalo waxa ilaahi agtiisa loo qoray kii beenaalaha aad u beenta badna waa akhlaaqdi wanaagsanida runta ahayd iyo tii xumayd ee beenta ahayd quraanka wadiga ku arkay sida ilaahay runta ugu amaanay liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim kuwi marka runtu ma aha untan afka laga sheegay mabda'a inaad runka sheegtay iimaanka iyo diinta aad rumaysantay baa kamid munaafiqiin iyo waxba laga hadlayay Soma dadna muuminiinta dhabtayd barta ilaahay kaga warramay runta sheegay liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim iyaguna way ku xigaan qolay beenta sheegtay ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وحل يرفنتو وحي أوجب لطي صاحب قفك مؤمنك بأنتنا وتكبها كليا أو كنت كوبا وكسعوا منافق بالقرآن كآخر ما يلقص هذا بقى
runta maalinta qiyaamada ku anfacaysaa hada qaala Allah hada yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum wa maalintii dadkii runta sheegi jiray ay runtooda anfici doonto way maalinta wax ku anfacayaan waa qiyaamad dad qiyaamo fashilanto naar aad gasho dawaad halaagsantay marka runtu thamaraad badan bay leedahay midho badan bay leedahay ilaahay baa kugu jeclaanay makhluuqna waa kugu jeclaanay imika dad war sheegayso si wacan baa lagu dhageysanay leena run baa lagu oogi haddii kale lagu oogi laakiin waa la qoslaya marka hadlayso hebel baynale waxba war baan haya ayaa waa laga sii jeesanaya ummadii saasad ku noqonaysa ilaahay agtiisana darajaad ku yeelanaysa dad runta badiso ajriga qiyaamaha iyo dee abaalmarinta ilaahayna waad la socotaa iyada taas wadinka garanaya ninkii Cumar beenaale loo oran jiray maalin walba oran jiray adhigi waraaba cunay Soomaa ayaa waa waraaba buuxo soo carra markay dadku waramada soo qaataan waa iska ciyaar beentay baa maalin labaad waa waraaba buugra marka maalinta labaad waa iska ciyaar ciyaalku marka waxaan xaraabaysanay Soomaa uu xaraabaysanay maalintii dambe waraabihi dhabtaaso war laftiisa oo adhigi gamto joogso ha iska qayliyo war waa wixii simsaale inaga daa awal buu isku oran jiray waxay Soomaalidu tirabeentaada hore runtaada dambe halis u tahay dad maalin iyo laba been sheegto weliga hadda run sheegaysa dhicid waxba ka dhageysanayso oo naga hubsada lagu oranay dhaqamada wanaagsan gaalada diinta u soo jeeda runta kamid ballanka wanaagsan ba kamid akhlaaqda wacan ba kamid qisas ka dhacay dhulka gaalada iyo meelaha islaamka way baday oo nin gaala soo islaamay dabeedna wuxuu yiri markii loo waramay leeyahay markuu wada shahaadana wad soo meedhanaysa shahaada lagu qabanay masaajidka galaysa khamrigu waa xaraan zinadu waa xaraan tuugad ee lagu dadna wuxuu jooga anigu islaamkan doonaya kaama ahabu mid kale weey oo qolo kale islaam ay haysato nimaanu saaxiibanahay oo maxamed iyo abdi la yiraahdo muslimiina islaamka haystaan baa doonaya oo waa maxay baa wuxuu nimankan waa niman islaam mana tukada khamrigana way cabaan meelaha lagu tuntana way galaan tuugnimadana way iga horeeyeen marka iyaguna dad muslim baa haysataan buu dumarka markii inaan buu guursanay bay yiraahdaan markii la inanta lagu seenada islaam dhaba noqoto kaabo idinka siiyay buu qabaanaga islaamkan adaga leedii masaajidka ka soo bixino waxba ha cunino waxba ha cabino waxba ha xumayn taanu mar rabo ninkaas marka akhlaaqdii xumayda saaxiibkii islaamka sheeganayba fogeysadii hadduu ninka islaamka nin wanaagsan noqon lahaa waxay noqon lahayd inuu sidoo ninkaas islaamka caadiga u qaadan lahaa hadduu ninkaas naarta galo waxa sabab u ah nin dhaqankiisu aanu wanaagsaneyn oo saaxiib ahaayeen oo diinta ka been sheegay akhlaaqda labaad ee ardayda aan kula talinaya waa xishoodka weey xishoodku qayb iimaanka kamid ah wal hayaa'u shu'batun min al iimaan ay nabiga sallallahu alayhi wasallam qofka hadii xishood laga waayo iimaankiisina waa daciif weey fala wallahi ma fil 'aysh khayrun wala dunya idha dhahaba al hayaa'u in la noolaado iyo adduunyo la joogo macnaba ma laha hadii xishoodku tago maanta waa ogtihiin xishoodka dadku halku maray ardayga xishoodka laga rabaa waa inuu macalinkiisa ka xishoodo oo ixtiraama dadka ka waaweyn inuu ixtiraamo ka xishooda horta cid uu horeysad ka xishoonaysa waa ilaahay subhanahu wa ta'ala al hayaa wa haqq al hayaa ayaa leeyahay xishoodka dhabta waa in ilaahay ka xishooto dadka wad iska ilaalisaayo wad ka dhuumataayo waxa tare hebel bayna arkay aamusa joog iska day xumaanta hebel bayna arkay laakiin ilaahay inuu ku arkay qalbigaba kugu jirto markii ka tagan buu aadayna noo wada daba marka ilaahay maad ka xishooto kamaad xishoon dadna wad ka xishootay ilaahayna wad ka xishoon xishoodku waxyaabaha cilmiga lagu bartaa cilmiga shariicada meesha waxyaabaha laga soo qaato xishoodka kamid waayidan dambe waxa iska soo baxay dhiiranaan iyo indha cadaan iyo farataagtaag xagga ardayda ka timaado badana ardayda oo dhan ma ardaygu macalinkiisii hebel buu iskaga oranaya faruu iska taagayso waa macallin deena sidii xeeraankii suuqa joogay buu hadlayay waxa sana ardaynimo ma xishoodna ma macalinka markaad ka fasax qaadanayso waa inaad fartax taana saawada waxa waa inaad saatiraada aw miskiin aha miskiin ilaahay المعلم كل يوم معلم كود دور سنة صارت ما الله سعته أنا دور سنة سنة معلمين معلم كود أباهن تدعي علمي سسامة وقف وحدوني ما أنا بيربو كوجر ذيا القاعد وين بمركود دريا مر قاطير بكود دريا مر صعب كوكو بدنا يمر بلاد وين بكوسينة وعلم كل بين تعدو كقاعدة كرت مركب معلم كي مرة ضاد بريس اللي هو كقول لي حقنا البرداء وين إذا بالله معلم كولا هذاش معلم يفصح كرت حتى وين ترى معلم نفصح هذا ترى أمر بات سسامة نفصح ده أيام كلية ده نفصح ده نقدر يسود ده معلم كي هو دجالة سايم حقوق الركاء ما نيمركم ده ضايع فرتاك جاي إنه قلنا كوين لو في عين
deed waa hadal kulul weey kuleel weey حتى هو يدي بقول ده نسي وحده horta deedan hal iska day arday inkastoo idan ku gaar ahayn oo dhaqan ay leeyahay hadana waa khalad dhaqan aan wanaagsan weey xishoodku marka waa muhiim aad buu muhiim u yahay inaad waalidka ka xishooto ardayda ka kaawin inaad ka xishooto ka kaayarna waa inaad u naxariisato wadada hadda adoo maraya khalad sameeyo qof inuu kula hadlo inaad ka xishooto mid yar baa arko 8 jir meelahaas oo wada maray buugaag sitaba waxbuu shiiday waxbuu sameeyay odayba ku wariyaha oday weyn oo ugu kala inta ku miiskan bam ayuu dhar leegi dadna odaygu ana tara inaan dul doona adoo oday 8 jir isna miiskan u leegi odaygu wuxuu ku leeyahay ana saas ku yiri odaygu intuu aamusay xaga isaga dhaqaaday muxuu sameeyay haduu dilana waxa laga yaabaa in bariga hore wala karbaashi jiray qofka yar ee dara sameeyay cid kasta ha dhasho waalidka marka loo sheeganayo isna uu sii karbaashi jiray imika hooyadii soo kaxaysan ama abiyo burweysita ku imanayo qorniya ku dhalaha marka akhlaaqiyadkaas ardayda ka mas'uula in kor u qaadi karto ay hagaajin karto akhlaaqda kale ee ardayga laga rabo sifada iyo dhaqanka la yiraahdo tawaaduca kibir la'aanta naftaada waa inaanay ku jirin isla weyni waana wax rasuulkuna ku dhaqmi jiray kaleey salaam islaamkuna in farayo ma tawaada'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah adon isma dhul dhigo oo isma iskiiniyo oo kibir la'aan kuma dhaqmo illa haduu sidaas sameeyo ilaahay ba kor u qaado nabiga kaleey salaam dad imika badan oo doonay inay kor noqdaan oo caan noqdaan oo dadka khasab nagu bartay khasab nagu doortay labada arkaysa oo dadkuna nacdalayaan adiga waxa ilaahay ba ku dooranaya sharaftan isaga ku siinaya hadaa dariiqeedii martay waxa ila cilmigu wuxuu ka dhigay daad soo rugmaday oo kale daadku roobku markuu soo rugmado daadku fooq miyuu koraya iyo buurta iyo meelaha daad meel aragtay koraya buuraha xagga sare qabanaya ma jiro biyuhu waxay u socdaan meelayo meesha ka hooseyso cilmiguna wuxuu galaa qofka uu ka tawaaduc badan iyo ka isdhul dhig badan iyo talada ka aqbali ogiyo macalinka ka ixtiraami ogiyo ka wanaagsan hadda qoorta taagtaba leey waxaad ka dhigantay buurtaas oo tir daadku hay soo koro biyaha soo galaan tiirkan oo yiri biyo sare hay raacaan bila tuumbo oo daadku halka iska maro ayad ka dhigantay dad isla weynaato cilmina aad doonayso la yata'allamu al-ilma mustahyin wala mustakbir labada qof midna wax ma bartaba leeyahay qofka xishoodkii caadiga ah ma waa ka xishoodsiye xaqa ka xishooday masalada ka xishooday cilmiga ka dhuunta ee baqda ee fulayga weey iyo mustakbirka ninka la isla weyni ninka isla weyn ee fuqa taagay arinta wana qaanaa walba maxaad in sheegaysaa buku oranayso mana yaqaanada marka tawaaduc ayna la timaada dadka aad isleedahay imika quraanka markaad akhrido dadku ilaahay ka sheekeeyay ee wax qabtay oo dhan ee dacwada ka qayb qaatay magacyadooda kuma xusna meesha wuxuu baa ku xusan waxay qabteen muhiimadu ma aha magacaaga iyo qoladaada iyo teetalkaaga in la sheego laakiin diinta iyo dadka iyo dalka maxaad u qabatay naftaadu ba muhiim suuratu yaasiin akhri suuratu alqasas akhri meela kala akhri wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a ba ilahi wajaa wahyi rajulun wala nakreeba lama oran nin loo jiray maxamed oo xaafada deganaa oo professor ahaa jaamacad ka baxay reer hebel ahaa lacag haystay oo waxa qaban jiray ba halka soo maray nin uun balay marka ninka magaciisa la garan maayo qoladiisa la garan maayo luqadiisa la garan maayo laakiin wuxuu ilaahay noo sheegay inuu badbaadiyay nabi Muuse ya Muuse innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka min an-nasihin ilaahay ba saa uga waramay qof ilaahay ka waramay wax ka weyn baa jira caannimadu u baahan yahay weynaantu u baahan yahay wax suuratu yaasiin oo adiga arkay saddexdii nabi qoomkii beeniyay nin ordayay bay meel fog ka yimid labadoo meel fog bay ka yimaadeen ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ardayahay allah idin barakeeyo ku dadaala isla weyni la'aanta arday baad waliba u tahayo waad u sii baahantay markastood iska dhigta miskiin wax u baahan macalinku mas'alo buu ku faa'iideeyay laakiin macalinku adoo fuqa sii taagay ku arqama sii gungunuusayo ama afusaale inta yaradu ku soo wadeen oo iskala aamusay hal xadiis macalinku ku sheegay ama hal talo ayaa ku anfacaysa noloshaada ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa akhlaaqiyadka ardayga laga rabo waxa kamid ah al-himma al-aaliya inaad hansara leedahay horta maxaad doonaysaa imika adu waa inaad warqad soo qaadataa iyo qalin dabeedna waxa aad doonayso aad sheegtaa Soomaalidu waxa tira qooleydu qoor qabasho biyo kuma cabto dad shimbir soo qabataad biyo halkan keentaad tiracab khasab ku cab
مي عبيسة ما عبيسة قف كان علمي الربين أما قرآن كالربين أما الدين تانو دكتور ربين السرقة اللي سوقبته صار الله وهاي حبر ما يد وحبرنا يقف كيسوي سوقبتي وحتى هذه مركه ورد دلنا يرنمي وحيين مركه اللي سوقبتي سيد حقلي كاسا وحبرنا علمي هير كيف ربطينا تكجاد وحلي هرت مال سرق ولا جاد قف كمؤمن كوهيك سدا وقصر رئيسه واتشنده مال كسر رئيسه ما شرته سيد الله بالقرآن وشاهد في جنة عالية سيد الله مور عالية شنها سر رئيسه بالي نار تنمحل الأسفل سافلين يدرك الأسفل وما له صون يضن هنكا وها سرية شن برت يقول سريس الدنيا ذن علم إن النقطين خطيبة إمامة حافظة قارئة عالمة أقول تكلم هذه أنا وحضناك يقانا وأنا تكف كرتا لكن محيك عقبها هاي فعليا قلبك عقبها نيك عقبها قفك ماشي وحكبرتا والنية دوي وحلا قدور أنتم مكا عشان مكا هلكم فردين رجع قارنا إني بوحسدين قارنا أي ككلا دمان تبى لقيهم ويا صديارين مع معلنك واحد يو والدكم أرضك هتوح برنا يو معلنك يو والدكم بقول كيبا مد بقول كيبا طبعا بقول معلنك بقول كيبا طبعا بقول لي إحبر الشذا والدكم بقول كيبا طبعا حاسوا هذي سديت كا أرضك أسكر والدكم كسوته وشين خرج شيء اللي قاعد بحنا تري سير إيو وحيلو ده ماديات كده كتب إيو بس كوكابحية يخرج كيرا بشهادة مرة أخبرنيس معلم كنا تصالحان 10 بكون دقيقة صبرنا صوت دقيقة وشرح يوسك دقيقة إلا أنتم القاعات كسوق قاعد قلبي هو قليل ما يه هل كاسو 10 كو أخرية وشرحيا كذا كاسو كبحين قرآن بكار دقيقة سنة كتاب مسوق بسنة يسوون وأنت أصلا جوابت اسمه أحكي لكم قبض معلم والصحب كورني أما وخلق بس كيسو قيب لها تجويد كيسكها جايين لها عدك كرو قاد لها كبرت لك رب الديارين لها كي هو رجال كاين لو أديك شقادي أوردم بقول كي بسيدات أرضك سارن معني كردو عبنا يحن نكنا حسوا ما قيبين والد كنا وحنا السان إلى سال لسان إلى ضد كردو أديك نكار كود شقا يستد والد كو على معني كو على كي اللي يروح كير دقيسو على وحيد أنت بينك وفرحانك ودعية وحلا جربا والد كنا رأينا كاس إلهي خير السيء ما شدتك لقى كسبة وقلبي واحد شرقف والد كرالي ممكن يهي مرة وحكوه يهي ده وناقص قفنا أنتوا سوا قبل أربع كيبه هلكن كسنقال وريا ما قاعد يحتاجوا يرمي هذا فرصة محمد كان اسمه معلم كنا واساس وكلا حلقة الدنيا دبا أرض يوم إن أدهان سرة يهي سرة هيكس سرة يمل سرة دونس قرآن كوات لما يسي ورد قرآن لما يمشي رباك ورئيسه قرآن تلا لما يو لقد تخرجوا هل خلق بحا مشرو dadka quraanka dhameeyo dadka ugu quraan akhriska badan leh maalintii 10 jis bay akhriyeen dadka caadiga saddex shu ku dhameynay ninkaas quraanka miyuu dhameeyso kan wada 10 jis hadana 10 isaga kaliya weeyaan marka imika subcinayso xalqad bal leeyahay fadhiisanaya jis bal akhriya jisku 20 bog 10 ninna waatiin waa qaybsanaysan ninba waxa ku soo beegmaya maxay 10 marka 20 u qaybsanayna laba bog marka sanadaan waxa jiska ma jis baad akhriday sheekh laba bogba ku soo baagmay quraanka maanta dhan la akhriyay oo qaar laga kaxaysto ninka qaatay wali haddana waxaad ku faanaysaa inaad jiski garatay anu quraanka waan subciyaa maalintii jis ma subcisi laba bogba subcisi hadda jis akhrido hadii laba waa tirada aan sheegay haday jirto xalqada qaarna dadka wax dhiga qaar ba inta in laga xalqad iska gelinayaba aad kububa soo gaadhay isaga sikadaas soo socotaayo marka 3 bog 4 bog la soo akhriyo ayay ku soo gaaraysaa aayad marka la xamaaranaysa tiyo nasiibinaysa ku dhaafaysa dadna shaqadaada iska qabsanayso subac macnaheedu min as-sab'a buu ka yimid 7 waa in quraanka 7 cisho ku dhamaysa kaliya marka hore saas subac la yiraahdo laakiin aynu magac kale u bixino deena qaabkan in quraanka u akhriyo marka maxaa laga rabaa inaad iska ilaaliso caajiska himma caaliya waxa ka mamnuuca inuu qof caajis badan tahay wahsi badan allahumma inni a'uudhu bika min al-'ajzi wal-kasali wa 'udrada bulshada ku dhacay nabi maxamed ilaahay ka magan galay alayhi salatu wasallam ilaahay waxaan ka magan galay buu oran jiray nabigu ajziga iyo kasalku way kala duwan yihiin baa leeyahay ajzigu waa inaad midalan dan naafo oo kala tan waxba qabsan karay waana halkan ba ka kici karay in la baasha yar lagu soo qaado kasalna waxa la wahsi baa leeyahay ka inahaye inaga arday yaro waxa dadka 10 jir oo la soo buuga yar soo qaado ilaahay dalkan uu yeelay isna 10 jir haduu duulo halkaas u gaaray
وهسي باهي وهسي قنا إلهي وحكو شاقين لمكا بن آدم كأوغو حنا منافقين طلعنا مركي عبادي السنيان وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هذه الصلاة أنتو كذا يقول وهسنا يبي تكذا بإلهي ونيدك يفي أو قلبي قدام شغل السنة صلاة أنا بقى درغ كتاين ده الشخص ده هنقولني عذر كم واحد النبي وحنا تصنع وربي الدعين كأوبض النبي آخر سنة صلى الله عليه وسلم مكا وداء العصر بقى يراد حل جنا نتشوفنا عذر كأوبض أنا ذاك كل عيوين عرورتي وحبا كل عيب إلهي هنا جالس سلامة دي إنك تضبط تمشير بركو قاعدة وقرآن كير رمام سكولك ما بيبي هو يدي أبيه بديبه هنا كاس ما بالك عايش سمبوك قاضي وحنا سوق كرينين أنتوا ضبك معها أنتوا ضبيس ما يدي وحسكوها يا فيش معها بهالك ضبك كتير ما بالك وك كلا وضع الله هذا إن قدين كريماي غير كوصل شقين كريماي صلاتي كريماي برتاسويا الله هذا واحد لكم قريتين مركب محيكو تصنع عايش سنم وهس إلهي والله قام كان كلام أنا اللي جابك سدا إلهي بكاب أبين كرا أدوك أودي حالة إسكيك بدبادي سمرة والله جاي أبغى أختي لو كنت طلق قلبين الدافت مرة شيخون داق تجر مرينا وقدام بين ولا هذا الرجال وحنا يكسوق بالجبين يا إلهي درتي إخلاص كنا وجاتان طاعدني ماذا يقلبي جا وهدود ضاعدي هي هل كان يدو شوكتا ما لو سحري سيدي أسكر أنت لو ساقب تمايع إلهي درتي بدو شوكتا دو والدكاك وقرت إلهي درتي بدو شوكتا هذا علماء كوجرت إلهي درتي بدو شوكتا إلهي درتي وحكوين مجراه مر هذا واحد قبنا يسبب وح إلهي درتي وديهين أدونا إلهي درتي ذني سدي هذا صعد سوا أكتي معلمهم كور هو أنت وافريه طبعا شريط هو يصير لما رأس قرمي بحنا أتراهدوا تلهم باه وحبا في عن مال أنت لما أعطينا ما شبك فريستنا تران بحبا منه تجيب منه وإنما كان بكو بظهرات إذا كان صح رئيستين نمعذ يا صن سكت شقينا أي أبا في عمل marka waxaan ku soo gabagabeynaa ilaahay dhamaanteen khayrkayna waafajiyo idinkana cilmiga iyo amalka la idin soo xareeyay ilaahay idinku anfaco aad iyo aadna waxaan idinka rajaynaynaa ina wixii la idinka rabay wax ka sareeyay keeni doontaan barakallahu fiikum jazakumullahu khayr sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi